kooxda argagixiso ee ka soo horjeeda deganaanshaha iyo dowladnimada Soomaaliya ayaa tan iyo bilowgii bishan wajahday culayskii ugu weynaa oo looga soo horjeedo ficiladooda ka maran diinta, dhaqanka iyo dowladnimada. waxaana hadda soo baxaya tallaabooyin horumar oo ay qaadeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ee iska diiday in kooxda amaradeeda ay qaataan. gobollada Hiiraan, Galguduud, Gado, Baay iyo Bakool ayay hadda kooxahan argagixiso lumiyeen deegaano muhiim oo gacantooda ku jiray. qaar ka mid ah dagaal la'aan ayay kaga baxeen, balse gulufka ciidan ee ku wajahna ayaa la aaminsan yahay inuu run sheegay. bilowgii bishan Sebtembar ayaa laga diwaan geliyay gobolka Hiiraan dhacdadii xasuuqa, laakiin maanta oo bishu sii idlaanayso, Hiiraan gacanta kooxda waa laga saaray deegaanadii ay kaga jirtay. goobihii loo tegi jiray maxkamadaynta ee kooxdan dadka deegaanka ay isugu yeeri jirtay, hadda ciidanka dawladda ayaa ku sugan, taasoo ka dhigan guul weyn oo la gaaray. gelinkii hore ee maanta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay la wareegeen deegaanka ugu dambeeya ee gobolka Hiiraan la wadaago gobolka Shabeellaha Dhexe. goobtan ayaan ahayd halka isku xirta xuduudaha labadaasi gobol. Moqokori oo ay 15 sano ee la soo dhaafay haysteen Al-Shabaab gacantooda ayay ka baxday, waana aag muujinaya in kooxda si buuxda looga saaray gobolka Hiiraan. bartamaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galguduud, deegaano u badan dhulka miyiga ayaa gacanta kooxdan argagixiso ka baxay, waana aagagii ugu ballaarnaa ee ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay qabsadaan. inta badan dhulka xeebaha ee gobolka Mudug iyo Galguduud ayaa ah aagga ballaaran ee ay kooxdan ka joogto gobollada dhexe ama Soomaaliya bartamaheeda, marka laga reebo gobollada Jubbooyinka oo dhul baaxad weyn ay gacanta ku hayaan. isku xiranka howlgallada ciidan ee Hiiraan iyo Galguduud ayaa ka dhignaan doona mid soo afjaro culays kasta oo ay kooxdan gaar ugu hayn lahayd deegaanada xeebaha. waxaana durba la aaminsan yahay in maleeshiyaadkii kooxdan ay bilaabeen inay ka baxsadaan furimaha dagaalka. Baay iyo Bakool, ciidanka iyo dadka deegaanka ayaa bilaabay baacsiga kooxahan argagixiso, waxayna qaadeen howlgallo ay ku gaareen tuulooyin ay hore kooxdan u joogi jireen. gobolka Gado waxaa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa maanta. waa aagga sida rasmiga loogu diiwaangeliyay dagaal ay jilbaha isku dhigteen labada dhinac. saraakiil dawladeed ayaa dhintay, 4 jiho oo dagaal ayaana kooxda lagu qaaday. deegaano kala duwan ayaa laga qabsaday. gobolkan degmooyinkiisa ayaa la qaba gobollada kale ee koonfurta in kooxahani ay go'doon ku hayeen, balse howlgalkan oo ah mid ciidamada dawladda ay fulinayaan ayaa ka dhignaan doona in jidadkaasi la furo. howlgalladan wadajirka ee ka bilowday gobollada dalka ayaa ah naruuro ay dadka Soomaalidu marun sugayeen in kooxdan gacantooda laga hoos saaro deegaano badan. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa hor yaalla caqabado ay abuuri doonaan qabsiga deegaanada, gaar ahaan marka laga hadlayo in ciidanka lagu hayo dhammaan furimaha dagaalka la xoreeyo, maamulka deegaanka la dhiso, dad kale kalsoonidooda dib loo soo celiyo, maadaama qaybo ka mid ah deegaanadaas 10 sano ee la soo dhaafay ay kooxaha argagixiso gacanta ku hayeen. madrasada Darul Istiqama oo uga barateen barashada Quraanka Kariimka kana qalin jabisay dafcadii 10aad waxay hadda idin soo kordhisay online academy oo ah qaab casri ah oo uga baran karto Quraanka adigoo jooga gurigaaga meel kasta oo aad joogto waad noqon kartaa ardayga Darul Istiqama. wixii faahfaahintaas dheeriya kala xiriir lambarada iyo gmailada shaashada ku qoran. Darul Istiqama daarta cilmi.